maasada magaceeda waxa la yiraahdaa hogaamiye hogaamiyaha waynu garanaynayo waa cid kolba waxa halka ugu sarreeyay qofka hogaanku ereygu wuxuu ka yimi kolkiisa hore watan awrta marka la wado xarigan lagu garqaado yaa hogaan la oran jiray cidda wadee hor socotaana hogaamiyaha ayuu ahaa cidda hogaaminaysa halkaas laga keenay kullay waa ummad cidda maamusho waa madaxa ugu sarreeyay ummaddu ay leedahay ama cidda taladeeda haysay ku soo ururto hadduu kaasu kaa waasho waa la wada waashaa hadduu kaasu kuu hagaagana dadka oo dhami oo aad hogaamiye caadilo ku noqdo waa kii ilaahay laha todobada waa kii nabigu laha xadiiskii nabiga ay ku jirtay Bukhariga ku jiray todobada ilaahay oo hareeyo qiyaamaha malikul caadil baa ku jiray nin hogaamiye oo caadila oo ummadiisa sidaqayade maasal taasuun baan bal isku dayay inaan heerar baad jira qofka hogaamiyihii gaadho imika keenan inaga wuxuu isaga halkiisa ugu sarreeysaaba waa heerka oo adiga arkay qabyaaladii qurunkaas imika iska laaqanaya isagu waxaas ku daysiga dhex jira halka ma dhaafsiisnade laakiin se heer baa jira qofka bini'aadamka heerarka uu gaadhay bal ka sarreeya halkani aan isu dayo wuxuu yiri Muuse oo habeenadan Muuse Yusuf Kaamil la yiraahdo saaxiibanahay ayaan deemaastada ku halqabsaday waayo maalintan gabaygan sameeyay buu agfidiyay Muuse oo habeenadan hawraarti maansada baalmaray hogeedii gees dhigay hubkeedii balse hoota ma noqon mana dhiman hankaygii mana dhimin haruukii runu heelintaydii wali waa halkeedii habrashana warkeeda heemaalka jiiftada qaar iga horeeyo hiba lagu manaystaa heemiyay duxdeedo waa huubaheedii waxaan heelka soo dhigay aan waxba gabi maaye ragii gabi jiray dhamaadee aniguna meel dambuun baan imika gaxaratadii baan idin sii xagxagaya marka xumo la huursado samuhuna habeensado garashada hog loo qado hinqashada dharaaruhu saban aakhir heegmaan wuxuu yiri xanuunsame nabigii habboona alayhi salaatu wassalaam himilada darleeyahay duul baa u soo hara hawadoodu been iyo damac iyo hunguri tahay helinkay ku seegaan harawsiga ismoodsiis dadna way haleeyaan dad ma kala hanbaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaskiya halasuhu ku yuuro iyagoo habeenqada codka ii hibeeyay la dhex tagay hinaasuhu ma hogaamiyu noqon waad arkaysaa imika dadkoo ooman oo iska tii ilaahay isaga jira dadkaysade ayuu horeen waan tartamana hada uu tartamay wax loo tartamay ma jiraan be oo loo tartamay dalkii joogaanba wada iska ooman oo iska gaajoonaya caruurtoodii iska tahriibayaan horeen waan tartamaya oo la isku qabsanaya ruux meesha la isku qabstaamay yaalaan tan tii la isku qabsan jiray kale ma ahe dad ma kala hanbaysta danta uma hagoogtaha maatada habaaskiya halasuhu ku yuuro iyagoo habeenqada codka ii hibeeyay la dhex tagay hinaasuhu ma hogaamiyu noqon hadda heeriyadii cunay hafar baad ku noosheey hiilkiya kalsoonida hanashadu ka xeel dheer dadku inay ku codeeyeen macnaheedu ma aha inaad hanatay ma hadde haday codkoodii ku siiyeen haw qaadan inaad hanashadu way ka fog tahay in lagu codeeyay in maanta ay codad ku siiyeen waxa ka fog tahay hanashadu waa in quluubtooda degto weeyaan hanashadu waa in dadka bini'aadanka sawirrada madaxweynaha imka xafiisyada iyo guriyihii lagu dhajiyo ma aha waa in sawirrada quluubta la isaga qaato weeyaan marka maalintaas dadka matashaade sumadaha hogaamiye lagu hayb yaqaana sumadaha uu leeyahay hogaamiyaha ee lagu hayb yaqaana waa hayal samaantiyo kibir laga hayaamiyo huwashada xaqiiqdiya habka dhaqan adoonnimo hogashada ilaah garad dadka kiisa hodanka iyo hebelka caydha ama kiisa hanadka iyo soomahooydaha hadda uuni suran tahay waa harcayeegtaan ku darsoo harkiisana horma gaara baan degin huga suudnin qaatiyo inta shaalka haysun hadda hadalka kama guro inta hayla duugiyo calal hoolmay sidatiya danyaraha hal soo biday hadda heegan kuma diro ka hiroo u diido kadinkiisa ku handada yani hogaamiyuhu ma aha inta suurka xidhan iyo inta shaalka xidhan un ma aha ka intaasuuni ay u gasho ma hadde dadka kale masaakiintaana dee laga celinaya ma hadde in la arkayneen
meel alla meel joogaan diliya baal saarayna maalintu soo baxayaan wadada la xirayo inuu muluhu marayn ee dabeetana shanta suugno hor socdaan shanta suugno daba socdaan ee dawladdiisiiba ka baqaya kaas hogaamiyaha ma aha kabaqaadku heestiyaha hayda kuma sabo dadka oo harraad qaba sicir bararna heemiyey gulwada habawsha hoostiisa kama tuma heelada barwaaqada yani hogaamiyuhu ma aha mid dadka oo isaga jira wax la og yahay laga ilaalinayo jaraa'idada kuwa waxa qorayaba mid laga ilaalinayo oo loo diidayba inuu arko hogaamiyuhu ka ma aha heer baa la gaadhaa haybta reerka iyo hindisaha qabiilkaba hanku kaaga dhaarto himilada danguud iyo dadka horumarkiisa iyo hilin toosan raaciyo ifku waa habeenee halhays fiican reebuun halgan kuba uu kaa yahay heerkaasaa la gaadhaa halganka aad halgamaysaaba intaa uu kaa yahay heer baa la gaadhaa la dagaha habaabiyo dulmanaha la heeriyo deganaha hungoobiyo qatanaha hanqaarmiyo hooyada danlaydii hiilkaa filaanay kuga hooda sheegtaan heer baa la gaadhaa dadku yahay hubkaagii marna yahay hugaagii hantidii iyo naftaadii noloshiiyo halbeegii hogoshiiyo daruurtii hadhaciyo ugbaadkii humaag baadisoocdii hawe aan la'aanteed habeen aanad barideen heer baa la gaadhaa noloshaada iyo waxa alla waxaad sheeganaysa oo dhanba dadkaagu ku yihiin oo maalinba halkii dadkaagu yaallaan un adiguna aad ku sixir goosato kaasaa hogaamiyaha dhabti u yahay waa ninka ku sixir goosanaya maalinba halkii dadkiisu taagan yihiin laakiinse nin muxuu haayey aan hargeysaba warka haynba oo ku odhanaya waxaan maqlayay in bariiskii qiimihii bariisku kacay wuu maqlayay wuu dareeminba xitaa dadka waxba lama dareemayo isagu waayo waxa weeyaan jasiiradii yaroo kale uu ku nool yaho dee hawaaye ku taalla malaha oo meel kale dee ugu taalla laakiinse heer baa la gaadhaa bini aadanka dadkaagu ay yihiin maalinta dadkaaga ay dhulka ka taalla adigana ay dhulka kaa taalla dee heer baa la gaadhaa qurintaad la nooshahay heer baa la gaadhaa dadku aan la haystiyo kii haystay kala noqon heer baa la gaadhaa bini aadamku ku haysta iyo kii la haystay aanu kala noqon heer baa la gaadhaa hadalkaa tidhaahdiyo weedhaada haadiyo shimbiruhu higaadshaan heer baa la gaadhaa hurintaad la nooshahay kugu soo hirtaanay ku hareer istaagaan heer baa la gaadhaa haybaddiiyo karaamada rabbi kugu hagoogoo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaadhaa aan cid kula tartantaaba jirin oo adigoon ii codeeyana odhan marka dee dadkeygii aad noqotay qof caadiya noqoto qofku qalmo markaad noqoto bini aadamku iyagaa kugu hadaaqayaba because haddaad adigu noqoto qof sidii ilaahay u dhaqma yidhi ee dadkana u dhaqan la yidhi haddaad u dhaqdo dee ilaahay isagaaba kuu dullaynaya dadka moogtahay oo quluubtooda dadka suug iyo kaara iyo caburin iyo xidhxidhis laguma haysan karee laakiinse dadka wanaaggaa dee lagu haysan karaa dabete heer baad gaadhaysaa marka dambe dadku aanad adigu ii codeeyaba aanay odhan dee adigu ay kugu hadaaqaanba oo haddaad laakiinse garashadeedii iyo dee ragnimadeedii yeelato heer baa la gaadhaa hurintaad la nooshahay kugu soo hirtaanay ku hareer istaagaan heer baa la gaadhaa haybaddiiya karaamada rabbi kugu hagoogoo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaadhaa hodannimo adduunyo iyo hatigaadda maalmuhu lurba aanay kugu hayn kuwan gaajada ka baqaya ee urursanaya waxee muraayadhaagaasay gaajada ka arkayaan heer baa la gaadhaa qofka bini aadankaa aan baahidu aanu ka cabsan dee ilan ilaahay baa jiree laakiinse qofku uu raba inuu dhaxal reebo oo ummaddan uga taga dhaxal heerkaasaa la gaadhaa heer baa la gaadhaa hodannimo adduunyiyo hatigaadda maalmuhu lurba aanay kugu hayn heer baa la gaadhaa hor alliya xil kaa gudo kaa yahay huraalkaa heer baa la gaadhaa adiga iyo hubsiimadu isi hooyo noqotaan heer baa la gaadhaa hoos ruuxa kuu dhiga hawatiisu noqotoo hamigiisu kala kaco heer baa la gaadhaa waayeel habsoobiyo wiil haadka laacaa tusmadiiyo hayaankiyo taladiiyo hoggaankaba kuu wada hibeeyaan heer baa la gaadhaa aan cidiba kula tartamin oo aad noqoto qof bini aadamkao dhammi ay u hoggaansamaan laakiinse intaasoo dhan maxaad ka kale leexday waxaad ku garanaysaa mar hadduu hoggaamiyo loo wada han weynaa haramaha la tuuriyo huubaha la saydhiyo hebellada cambaartale isa soo hareer tubo hunge iyo inuu yahay nimaan hawsha wadi karin waa ha lagu ogaan karo mar hadday habaaraan maatidu higaadshaan ama hiifa kuuligu waa habeen madow iyo gudcur soo hamaahsaday mana laha wax haybada waanu hoodo daran yahay wal haddaad aragto masaakiintaoo ka cabanaysa ama islaamaha caanilayd oo meelaha ka habaaraya ninkaas waa gudcur maa sidaasina
halkaasay iga dhan tahay magaceedana waxa la yidhahdaa hogaamiye